بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسك عاوة إن شاء الله تعالى حاسكو داي درسي كصاب في سن الفوز أو الفوز العظيم، the great success. قول قرما اللوران كرا قفك بني آدم كي وو قول يستيقوشي كما دنبايستاهي حاسل لغو قياسا قوش مقياسا ما measurement أما هالبيق ملاذا لغو قيمة oo la oran karo qofkaasi wuu guulaystay kaasina ma guulaysanin. guud ahaan waxaynu ognahay bini aadamku ereyga guusha iyo najaaxa iyo fawska iyo tamayuska iyo muuqashada wuu jecel yahay. marar badanna iclaamka maanta jooga waxaynu maqalnaa iyadoo marar badan lagu celinayo ciddaasaa waxaa ku guulaysatay fi caalam alriyaada. نقول هبل باقول استي تيم هبل باقول استي عيدا باقول استي في عالم الاقتصاد شركات كواوين شركة هبلاية كوكول استي وحكان حبضان او بني ادم كو كور رميو دد قول استي لينو شيغا ياجرا. لكن حقيقة waxay tahay goorma la oran karaa insaanku wuu guulaystay, maxaase lagu qiimeeyaa guusha? ma markuu adduun helo, mise markuu magac helo, mise markuu sulto iyo maamuus helo, ma markuu caruur helo iyo reer iyo deganaanshiyo, ma markuu shaqo helo, ma markuu higher degree iyo shahaadaad fiican jaamacad macruuf oo la yaqaano ka soo qaato? goorma la odhanayaa insaankani waa insaan nolosha ku guulaystay? waxay ku xidhan tahay wax badan inaynu garanno hadaf alxayaa, maxaynu u noolahay, why we are living, maxaynu u joognaa dunida, maxaynu ka qabanaynaa. waayo ahdaafta bini aadamku uu nolosha ka leeyahay waxna waxaa la yidhahdaa waa ahdaaf marxaliya, waa goolis dhadhow. ardayga yar ee iskuulka ku jira goolkiisa koowaad waa inuu iskuulkan ka gudbo, shahaadad yar uu qaato. hadhow haddana markuu tan ka gudbo abuu gool iskala yeeshaa, ahdaaf yaryar oo kale uu ka gudbo. laakiin waxay isweydiinta leh wax oo dhan isku dar, ma huwa hadaf alxayaa? noloshaba muxuu yahay hadafkeedu? waayo wax lama qiimeeyo ama fawska ama successka ama guusha lama sheegi karo haddaan hadaf la xaqiijinayaa jirin. markaad hadafka aad xaqiijinayso aada garato oo yool aad leedaho yoolkii aad gaadho oo aad ku guulaysataa la odhanaya hebel waa guulaystay. su-aasha isweydiinta leh markaa waxay tahay, ma huwa hadaf alxayaa? nolosha oo dhan markaad maxay gaadhaa baad guulaysatay? What is the purpose of life? maxay tahay nolosha hadafka ka dambeeya? dadka badh bini aadamka ka midi hadaf way arki kari waaye weyn oo nolosha ay leedahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلهي عليه سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت،
naf waliba way dhadhaminaysaa geerida tan waad ka tegaysaa mahmaa kunt wax kastoo aad qabatay magac iyo maamuus kastoo aad yeelatay hanti kastoo aad yeelatay waad tegaysaa maxaa ka dambeeya ilaahay wuxuu leeyahy wainamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama ajarkiinna ama acmaashaa qabateen midhaheeda waxaa laydiin dhammaystirayaa baa laydiin oofinaya adduunka intaad joogto waxyaaba yaryar oo successes waad gaadhi kartaa laakiin hadaf ilxayaa maaha ama guusha dhabta ah waxaad gaadhaysaa natiijada kama dambaysta waxaad gaadhaysaa goolkaagii ama yoolkaagii ama meeshaad ku socotay waxaad gaadhaysaa marka aakhiro la tago aakhiro marka la tagana miisaan qura yaalla bes faman zuxzixa can innaar wa udkhila aljanna faqad faaz baa ilaahay qofkii laga dhufto naar la dhaafiyo naaraan gelin jannana gala faqad faaz baa ilaahay kaas baa liibaanay xaqiiqatan kaas baa liibaanaa ilaahay leeyahy ama adduunka iyo wixii lagu hayo o dhan wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur baa ilaahay nolosha adduunna wax kalaba maaha waa mid la qalday mid la kediyey mid maqruura mataacid weeyaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala wuxuu birbirsado dadka kuwa nolosha dambe garan waaya مثلا في السبعينيات فلسفة جنيد قوى وينيد كمدة فلسفة فرنسيسة وفلسفة الوجودية existentialist يلا لا فلسفة لا لا وقلد الرمي سمعين يا وحاركي حاس كيسيو قص ليس ريتنا ميدوق لي ودي لي بوليسku la hadla wuxuu yidhi waxaan dilay xaaskaygii qaanuunku shaqadiinii wixii u baahnaydeen boolisku ha qabto waa akbar caql filosofi faransa booliskii way yaabeen hebel professor hebel oo caqligii faransaba ugu weynaa waxaa lala hadlay janankii booliska haystay wasiiru daakhiliya la gaadhsiiyey madaxweynahay tagtay Giscard ayaa madaxweyne markaa ka ah yani markuu hogaaminaya dastuurka Yurub ay qoranayso madaxda waa Giscard baa waxaa la yidhi akbar filosof cindana ba haweentiisii xaaskiisii dilay maxaa la sameeyey waxay yidhahdeen caarun calaa faransa an tacqila caqlaha waa ceeb bay yidhahdeen maanta faransis caqligii ugu weynaaye uu lahaa inuu xidho مصحة عقلية هلا جاية بالي ما لها ضدك حنوصانية مدحة كتير رجوها هي هلا جاية مين كان سؤال شيء سويدين تلي وحويا محو دلي حلي إنه لش طبعا هدف رهين فلسفة روح حلي إنه لش أنا نشوف هدف ماله whatsoever النقطة تقولي وح كستان نقطة وح كستان السمايو صار لمن مايو waxaan arkayaa buu leeyahay natiijo aanan dhaafi karin sida awgeed nolosha gebigeedu waa cabaf buu leeyahay waa cayaar nolosha gebigeedu mar haddaan wax ka dambeeyaaba jirin wax kastoo aan noqdo mar haddaan kollayba dhimanayo waxaan sidii buu yidhi kollayba haweentani de way dhimanaysaaye maantay faraxsantay iyadoo faraxsan dunida ha ka tagto iyadoo qoslaysu dil كل بوي دمانيسا مركا ملا هدي جوجتا لحظتay ugu fiicnayde iyadoo faraxsan ka baxda dunida xilay dagaal lama galabay leeyeen aad ogtahay inaad tabayso ciidanku hadii la yiraahdo dagaalka waynu galeynaa laakiin waa la yiri jabinaya ciidamada dagaalamaysa haday xaqiiqatan lagu jabinayo dagaalku macna kuma markaad rajo qabto inaad guulaysanaysaa ma wax jabinayso dagaalku qiimo sameynaya xulay noloshatan hadiiba la dhimanayo maxay qiimo leedahay wax kasta aan soo sameeyo soo ka tagi maayo
therefore wuxuu maan dooran karaa buu leeyahay laxdada aan ugu farxad badanaya inaan ka baxo. That's why maanta Yurub qaamiyahanadeedu xorriyaadka ku doodayaan waxaa ka mid ah xorriyada ah qofku naftiisa wakhtiga uu doono inuu ka takhallusi karo. waa xorriya ragu doodayaan inaan dhinto markaan u baahdo. wasaaradda caafimaadku bay leeyihiin qofkii u yimaado yidhaahda waxaan rabaa nolosha inaan ka tago waa inay aqbashaa inay nolosha dhaafiso. waa tii loo dhistay in nolosha la ysku hayo oo dadka lagu xejiyo nolosha. waa maxay macnuhu? waxa weeyaan the purpose of life baan la fahmay. waxa la garan waayey maxaa loo nool yahay. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ina leeyahay markaa noloshan adduunyada geeri waa qasab inaad dhadhamiso. waxaad see ajarkaaga ugu weyn helaysaa maalinta qiyaame. ee guusha dhabtii waxa weeyaan baa ilaahay leeyahay faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz. qofka naar la dhaafiyo ee janno la geeyo kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi. amaa haddaad aakhire arki kari weydo wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. idan ayuha alikhwa, aragtida islaamiga waxay sheegaysaa nolosha adduun waa imtixaan. nolosha adduun waa ibtilaa. ibtilaaga noociyaadkeeda unbaa kala gedisan, laakiin noloshoo dhamma waa imtixaan. noloshan waxaad u joogtaa in questions lagu dhiibo oo jawaabaad ka bixiso. haddaad caafimaad qabto waad imtixaamanta. haddaad bugto waad imtixaamanta. haddaad faqri ku jirto waad imtixaamanta. haddaad maalqabeentahay waad imtixaamanta. haddaad baqo qabto iyo colaad waad imtixaamantay. haddaad nabad ku jirto waad imtixaamantay. noloshii gebigeeduba waa ibtilaa. ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay tabaaraka aladii biyadihi lmulka wahuwa calaa kulli shayin qadiir aladii khalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala wahuwa alcaziizu alghafuur. aladii khalaqa almawta walxayaa liyabluwakum baa ilahay inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum ayuhum axsanu camala إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. nolosha ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay un imtixaan. imtixaanka bejka adiga kugu soo baxa uun ansarkaad ka bixisaa la sugaya, jawaabtaad ka bixiso. hadduu nabad iyo nimco iyo barwaaqeeyay hal tashkur ma shukri naqday intaad ilaahay ku caabuday. hadduu dhib iyo mushkilada noqdo hal sabirt ma sabirtay intaad xisaabsatay ilaahay dartii. walidaalika ilaahay wuxuu ina leeyahay faxasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa tarjacuun. ma waxaa u malaynaysaa in dheeldheel laydiin abuuray? ayaxsabu linsaanu an yutraka suda. bini aadamku ma wuxuu u malaynaya in layska sii daynayo, sidaa in lagu daynayo? maya. ilahay wuxuu leeyahy wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun ila liaamuruhum bilcibaada ila lilibtilaa bitakliif. bini aadamka wax kale umaan abuurin baa ilaahay leeyahy jin iyo insiba inaan imtixaamo takaaliifta sharcigaa in lagu imtixaamo mooyaane. asli alcibaada waa min fitrat alinsaan bay dhahdaa. bini aadamku sidiisaba waa caabud, laakiin waxaa kala gedisan un wuxuu caabudayo. mar hawa nafsi buu caabudaya, mar doolis iyo asnaamu isagu samaystuu caabudaya, mar rabu samaawaati waalardi buu caabudaya, mar naftiisuu caabudaya. waxa uu caabudayaa bini aadamka kala gedisan. walidalik buu taarikhyahankii Greeg ahaa Plutarch wuxuu leeyahay qad wujidat fi الtaariikhi mudun bilaa xusuud wa mudun bilaa qusuur wa mudun bilaa madaaris walakin lam tuujad abada mudun bilaa macaabid. in history taariikhda bini aadamka buu leeyahay
waxaa la helay magaalooyin qadiima oo aan qalcada lahayn waxaa la helay buu leeyay magaalooyin waaweyn oo qadiima oo aan qusuur iyo lahayn daaro dhaadheer waxaa la helay buu leeyay magaalooyin aan schooling system iyo waxbarasho lahayn laakiin fi taariikh lama haya buu leeyay magaalo aan meel wax lagu caabudo lahayn taariikh alinsaaniya waxa archaeology qoday waxa wax la baadhay lama haya bay leeyihiin magaalo bini aadam uu ku noolaan jiray oo aan meel wax lagu caabudo lahayn ولذلك بلوتارك مركا لما وحو ليه إن مدينة بلا أرض تقوم عليها أسهل من قيام دولة بلا إله مقالين الدستان نلبا لهين يعني وحيرة مستحيلة إلا أن نلبا كتيرين نقولها مقالة نسوى مستحيل تاسبا كفضد بولي الدولة بلا إله هين تصميسو طبعا وحبر ما السنين يعني إنسان قوى بفطرته بو عابدي هي لكن waxay isweydiinta leh yaad caabudaa xoolahaad caabudaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay tacisa cabdu dirham wadinaar tacisa cabdu lkhatiifa addoon waxaa hoogay ka dirham iyo diinaar addoon u ah inaad lacag ururiso haddaad u noolaato iyadaad caabudaysaa cimrigaaga xooggaaga caqligaaga tamartaada waxaagoo dhan waxaad isugu geysay account-kaagu inuu bato account-kan waxaad ka isticmaalaysaa waa wax yar laakiin inaad badiso dadka badh baa u addoona guriga asaadka yaallown inuu bedelo maanta oo dhan buu soo shaqaynayaa bilaal la wadayaa waxaa la odhanayaa fadhigaa la bedelayaa waa la wadayaa qolka seexashadaa la bedelaya waxaad addoon u tahay alhabtan inaad bedesho modelskeeda That's the purpose of your life. noloshaada hadafkeedii intan baad ka dhigtay cimrigaagii waxan baad ku bixisay caqligaagii xooggaagii maskaxdaadii intan baad ku bixisay idan insaanku cibaado kama maarmo afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaah baa ilaahay ka waran ka naftiisu waxay doonto ka dhigtay wuxuu caabudo haddaba insaanka waxaynu leenahay miqyaas alfawz inuu guulaystay iyana guuldaraystay hal miqyaasoo keliyuu leeyahy noloshaadoo dhan marka la isku soo duubo sheekhi zandani baa wuxuu isugu yeedhay niman khubar oo dhakhaatiira markaasuu cilmi tashriix buu ka waraystay bini aadamku wadnuhu muxuu qabtaa muxuu taraa muxuu jidhka ugu jiraa waa la sharxay beerku muxuu taraa keliyu muxuu taraa kani muxuu taraa waa la sharxay kadib wuxuu yidhi waxaan oo dhan ahdaaftoodii garanay marka la isku wada dare uu qof noqdo ka warrama maxaa loogu talagalay isaga that's philosophy tani maaha cilmigii dhakhtarka ee waa philosophy baad ka warramaysa wuxuu haddii acdaada qofka bini aadamka mid walba waxa loogu talagalay la gartay waxay marka la isku daro haddaad gaadhi sharaxdo oo tidhaahdo taayirku waxan buu taraa injiinku waxan buu taraa steerinku waxan buu sameeyaa daaqaddu waxan bay samaysaa marka la isku rakibo gaadhigu muxuu taraa tidhaahda garan maayo ka warran hadafku wuxuu ahaa gaadhiga wixii loogu talagalay inuu garano baartiskiisa may ahayn insaanku maanta nool in badanoo ka midi waxaa la garan la'ayay waa maxay hadafkiisu markaad hadafkiisa garataa baad garan kartaa goormuu guulaystay waayo hadafka markuu gaadho buu guulaystaa ninka 100 mitir ordaya markuu dadka ka soo dheereeyo xariiqdii loo jeexay uu ka soo tallaababa la odhanaya waad guulaysatay waayo hadafkii baa la garanaya goolkii lagu socdaa la garanaya ka kubadda ciyaaraya labada birood ee meesha laga taagay markay caaga yari uu dhex maro ayaa la odhanayaa gool la qaylinaya waayo uu guulaystay hadafkii buu gaadhay wixii bahashaba loo ereeriyey waxay inay halkaa ka baxdo haddaad noloshaba garan weydo marka hadafka laga leeyahay waxaad u nooshay haddaad garan weydo abidkaa guulaysan maysid se waxaad guulaysanaysaa markaad waxa sokoo dhan u arkayso ahdaaf marxaliya ee hadafkaaga weyne goolkaaga weyne yoolkaaga weyne wuu kuu cad yahay aad ku socoto waxaanoo dhammin ay u adeegayaan yoolka weyn
haddaad xoogsanayso, haddaad shaqaysanayso, haddaad guursanayso, haddaad aqoon baranayso, waxaan oo dhan waxaad u adeegsanaysaa inaad ku xaqiijiso maxay hadafka weyn. markaasay noloshu macno samaynaysaa. ilaahay qur-aanka markaa wuxuu leeyahy faman zuxzixa cani innaari waudkhila aljannata faqad faaz qad aflaxa man zakaaha waman yutic illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima. nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiisku imaamu muslim soo saaraya wuxuu leeyahy ruba ashcafa madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi la abarah. badanaa buu nebigu leeyahay qof basaasaysan oo albaabada laga celiyo, yacni madaahir dunya kama muuqato, hanti ma haysto, muuqaalkiisu waa basaasaysan yahay, ma aha dadka albaabka loo furay markiiba la yidhaaha soo dhowow. dadka badh magac iyo maamuus iyo xoolo iyo wax buu leeyo, albaabada loo wada furaya soo dhowow baa la leeyahay. dadka badhna laa ya'bah bihi axad,